maalintii labaad ee maxkamadda sare qaadayso imtixaan loo galayo fursado shaqo ay soo bandhigtay 290 sharciyaqaan ayaa maanta u fariistay imtixaan ay qaadayso maxkamadda sare ee dalka. Sharciyaqaanadan ayaa soo dalbaday jagada garsoore iyo kaalin garsoore oo ka banaan xafiisyada hay'adaha garsoorka dalka. Waxay ku faraxsan yihiin inay soo codsadaan fursadaha maxkamadda ay soo bandhigtay imtixaan ay u galaan. 290 sharciyaqaan ee maanta imtixaanka u fariistay ayaa mid waliba waxa uu rajo wanaagsan ka qabaa inuu ku soo bixi doono natiijada ugu fiican. konton qof oo ka mid ah shakhsiyaadkan qaanuunka bartay ayay u baahan tahay maxkamadda sare ee dalka, kuwa oo loo qaadanayo kaaliye garsoore oo ka howlgeli doona xafiisyada kala duwan ee hay'adaha garsoorka iyo maxkamadaha heer gobol iyo heer degmo ee dalka. Tartamayaashan ayaa lagu kala saari doonaa natiijada imtixaanka ay galeen. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa ka hadlay imtixaanka maalintii labaad maxkamadda sare ee qaadayso. Waxaynu maanta halkan u wada joognaa wajigii labaad ee imtixaanadii ay waday maxkamadda sare ee qaybta ka ahaa dib u habeynta garsoorka. Sida la sheegay shalay waxaa halkan u fadhiistay imtixaan 215 qof oo u tartamayay 40 jago oo garsooranimo. maantana waxaa halkan u fadhiya 290 qof oo u tartamaya 50 jago oo kaaliyanimo oo loo qaadanayo qaybaha kala duwan ee garsoorka, maxkamadaha degmooyinka ilaa iyo maxkamadaha sare. Gudoomiye Baashi ayaa dhinaca kale sheegay in qorshahan imtixaanka lagu qaadayo lagu goleeyahay dib u habeynta hay'adaha garsoorka iyo in la helo nidaam daahfuran oo la xiriira fursadaha shaqo. Imtixaanadani waxay qayb ka yihiin kow dib u habeynta garsoorka lagu samaynayo, labana waxay hormood yihiin in ummadda Soomaaliyeed ay fursadaha dalka ka jira u sinaadaan, fursadaha shaqo soo baxa u sinaadaan, loo tartamo. imtixaankaasina uu noqdo insha Allah taala mid cadaalad ah sidii markii horeba idinka aad si furan aad emailada ugu soo dirsateen codsiyadiina. imtixaankuna uu noqdo insha Allah taala mid furan oo cadaalad ah oo guddiga saxaysa cadaalad si cadaalad u saxdo. guddiga imtixaanka saxaysa insha Allah magacyadiina ma yaqaanaan oo waraaqaha imtixaanka la idin siinayo marka imtixaanku dhamaado magaca warqadda magacu ku qoran waa laga jarayaa. guddiyadu kaliya waxay ku saxayaan number. taa macnaheedu waxa weeye guddiyada saxaya ma yaqaanaan dadka ay saxayaan magacyadooda iyo waxa ay yihiin. taas waxay muujinaysaa oo idin tusaysaa sida looga fikiray ee loogu dadaalay in imtixaankaasi aan sina aanu u soo galin wax shakiya ama warwar ah oo laga qabi karo oo aan iman tuhun ah hebel wuxuu garanayay hebel ama hebel wuxuu maaragtay u yaxday hebel. nidaamkan maxkamadda sare ee hirgelisay ka oo ay ku soo bandhigtay fursadaha shaqo ee ka banaan xafiisyada kala duwan ee garsoorka dalka, isla markaana aqoonyahano Soomaaliyeed ay imtixaan u galeen ayaa kalsooni ku beeraya dhalinyarada wax baratay ee aan helin fursadaha shaqo. Salebaan Xaaji Axmed Raagi, Somali Cable, Muqdisho.